dadweynaha ku dhaqan magaalada Xariirad ayaa cabasho xoogan ka muujiyay biyo yaraan soo food saartay iyagoona tilmaamay in qasaabkii biyaha soo qaadayay oo jabay isla markaasina la galayo xilligii xagaaga iyagoona sheegay in haantan weyn ay magaalada u kaydiso biyaha isla markaas ayna ku fileen dadweynahan ayaa sidoo kale waxay baaq u direen wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Soomaaliland iyo hay'adaha in si degdeg ah wax looga qabto biyo yaraantan soo food saartay degmada Xariirad qaarkood oo ka hadlayana waxay yiraahdeen qasabada taangiga ka soo baydhaysay iyo halka rukunka biyaha laga galiyo si naasaha loogu kordhiyo birtaan looga bedelo yaa doonayna oo libta uga baxno marka taa loogu daran waa taa cid wax noo qabanaysa hadii la arko sidoo ku dhaqta badan waa loogu qabto biyaha uga hagar beel marka sida kale ijiinku wax bedelo tira male bir baa wali naga xumaatay qori baa imka noogu jira hatta boroma waa laga soo waayay marka waxaan leenahay hadii sidii wax loo qaban lahaa idinka u xil saaran adiga gudbiyaha iyo cidda walaaleed noogu gudbinaysa soo ku dhaqso badan inuu weelaan doonayna walaal weyn taran dadka dadweynaha reer Xariirad nahay waxa loogu daran biyaha noogu taran iyo kamahela mararka xagaagi oo kaliya biyo kamahela waxaan ku dhaadayay waxa qodaya way dhaadheeriin meel kaliya ka dhaarsan ilaa iyo 12 duurnimo biyaha yar iska sugnaaday doonaan naga go'an kaydkeegu meel kaliya haday magaalada oo dhan kuma annagu magaalada oo dhan marka waa ka fognay biyo ma heli karna biyo xagaayada oo dhan oo maxay ahayd haraad baan ugu laayay dadku inuu wax nooga qabtaan doonanay dawladdu nooga qabato biyaha noo soo yooday waxaan doonaynaa inay maxaan ku dhaaday biyaha wax nooga soo qabtaan ay noo taakuleeyaan noo taageeraan biyo la'aanta haysta haraadkiya dhibaato si kastaba ha ahaatee biyaha deegaanka degmada Xariirad ayaa iyagu ah kuwa ugu qaalisan halka jirikaankii la siisto lacagta Soomaalilandka oo ah ilaa 10,000 oo shilin halka lacagta birka ee Itoobiyankana ay ka tahay jirikaankii 10 qarshi si kastaba ha ahaatee biyo yaraanta soo food saartay magaalada Xariirad ayaa muddooyinkii ugu dambeysay laga dareemayay magaaladaasi Xuseen Maxamed Cabdilaahi Shinila News magaalada Saylac.